Maxamed Cali Maxamed Bege oo ka mid ah urur siyaasadeedka Rajo oo si gaar ah ugu warramay Gobonimo TV ayaa waxa uu ka dareen celiyay 12 saxafi oo maanta xorriyadooda dib u helay kuwaasi oo ka mid ahaa 15 saxafi ee ku xidhnaa xarunta dambi baadhista ee CID-da ase uu siyaasigu wax laga xumaada ku tilmaamay in 3 wariye oo kale ay xabsiga ku sii jiraan isla markaana laga reebay saxafiyiintan maanta xorriyadooda dib u helay madaxweynaha Soomaaliland iyo guud ahaan xukuumadda ugu baaqay in si dhaqso ah xorriyadooda ugu soo celiyaan 3daasi saxafi ee xidhan saxaafaddu waxay ka mid tahay saxaafadda madaxa bannaani waxyaabaha Soomaaliland horumariyay markaan dhinaca kale ka eegnana waxa ay noqonaysaa xukuumadda ay ku taagan tahay qarankan Soomaaliland waa rukunka afraad ee dawladnimada waxa kale oo jira saxaafaddu markii suuqa waaheen gubtay saxaafaddu aniga aragtidayda waxay ahayd in abaalgud la siiyo habkii ay uga hawl galeen markii dhaqaalaha wadanku uu dabka ku dhacay ee afka dhulka daray nimankaasi iyagoon cidina wadin oo aan lacag haysan ayay live dabka dhex cararayeen dabeedna live ba meel kasta looga daawanayay taasi waxay ahayd guul ay soo hoysay saxaafaddu wayna khaldami karaa qofka bili aadanka ahi madaxweynaha khaldami karaa ra'iisul wasaaraha khaldami karaa sheekha tujiya dadka khaldami karaa qofka bili aadanka ay uu khaldami kara waxaan leeyahay nimankaas saxaafadda ahi Soomaaliland qiimo weyn bay ugu fadhiyaan maadaama kuwii kale la sii daayay in la sii daayo oo iyagana la soo daayo weeye saddexda xidhan in lagu soo daro kuwa kale weeye hadday maalin khaldameenna de qof bili aadan uu khaldami kara maalinta hore waa heenba de waxa weeye inama yaryar oo cid lacag siisay jirin ayaa caalamka dhimka lacagta inoo soo ururinaya iyaga live ka dhigay iyaga tusayay dadka ra'iisul wasaaraha Ingiriisku muu ogaadeen in yar baa dhex cararayay oo aan cid lacag siisay jirin oo dabku indha ka galayay haduu doono uu gubanayba isaga kabaradiisu cid lacag siisayna may jirin wuxuu u halgamayay badbaadinta qarankiisa iyo sidii ay mataqaana loo ogaan lahaa khasaaraha meesha ka dhacay ayuu dabadeedna ay sameeyeen saxaafaddu qiimo weyn bay inoo fadhidaa haddaynu nahay Soomaaliland waxaan leeyahay saddexdan dhinac ku haray maadaama ragii kale la sii daayay saddexdaana xukuumadda oo waliba madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa inuu soo daayo waayo qof bili aadana oo aan khaldamin ma jiro uu khaldami kasta qof kasto bili aadani sidaas ayaan leeyahay waxaan kaloo halka aan ku adkaynayaa guddida loo saaray khasaarihii waaheen ka dhashay waxaan leeyahay saxaafaddu qayb laxaad leh bay ka qaadatay saxaafaddu waa kuwii live-ka ka dhigay saxaafadda ha lagu daro qorshaha haddii abaalmarin iyo dhiirigelin la siin waayo maalinta dambe saxaafaddu haddii wax inagu dhacaan de way iska seexanaysaa waxa weeye inama yaryar baa ordayey cidi lacag may siin cidi may odhan kaala oo orda markii dambena cidima soo qaadin inamadii live-ka ka dhigay ee meel kasta caalamka imka leeyahay laga soo gurmanaya dhaqaalaha laga keenayo saxaafadda ahay